madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dowlad goboleedka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Maxamed Dani iyo mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo maanta ku guuleystay doorashadii ka qabsoontay Puntland. waxaan madaxweynaha cusub ee Puntland mudane Siciid Dani iyo ku-xigeenkiisa mudane Axmed Karaash ugu hambalyeynaya xilalka loo doortay anigoo xasuusinaya jiddiilada bulshada Puntland ee ku aadan in ay deegaanadaasi u horseedaan amni, cadaalad iyo horumar. madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay musharaxiinta xilka madaxtinimo, guddiga doorashada iyo golaha wakiilada Puntland dadaalkii ay geliyeen sidii loo sii adkeyn lahaa dimuqraadiyadda qaangaarka ah ee ka jirta Puntland. madaxweynaha ayaa u rajeeyay shacabka iyo maamulka Puntland isbedel miro dhal ah oo horseeda xasilooni buuxda iyo horumar ay si wadajir ah uga tallaabsadaan bulshada iyo dhammaan deegaanada dowlad goboleedka Puntland. madaxweyne Farmaajo ayaa alle uga barjay madaxweynaha cusub ee Puntland iyo ku-xigeenkiisa in ay ku guuleystaan gudashada waajibaadka cusub ee loo igmaday.